على رسول الله صلى الله عليه وسلم ugu horeyn waxaan galabta halkan ku duubayaa clipkan aan kaga hadlayo arintii maanta waxaan aan halkan doonayaa inaan xal iyo apologies ka bixiyo nimanka cuqaasha iyo odayaasha ay halkan maanta media ka hadlay aflagaadadii ay u geysteen reerka tolka aan nahay Sacad Muuse runtii aad iyo aad baan xal iyo apologies baan ka bixinayaa runtii maanta arinta uma aanan tagin halka waxaan u tagnay laba qodob bay ahayd inaanu tacsida geerida inagu timid naxdinta labada caruur leh aan u tagno inaanu xal halku marayo tagno aan ogaano baarista ay marayso aan dawladda ugu tagnay maanta iyo inaanu dadka dejino oo aanay arintaas saameyn kale inagu yeelan intaas u baahed waxaan aad iyo aad uga xumahay wixii ragga odayaashii ay halka ku lahayd iyadoo sawirada iyo waxayga la soo dhigay aanan laakiin anigu wax hadal aanan shuqul ku lahayn raggaas raayigooda gaarka ah bay ku hadleen xaalna waan ka bixinayaa waanan waxa weeye salaadiin baanu nahay magacaygu waxa weeye waxaanu suldaan u nahay Soomaaliland oo dhan isaaq subaar walba u nahay salaadiin marka waxa weeye waxa xumeynaya Ciise iyo Sacad waa isku mid weeye labadaba salaadiin baanu nahay raarinka aad iyo aad baan uga xunnahay waanu ka raali gelinaynaa ugu dambeyn waxaan tacsitiirayay u dilayaa qoysaska ay ka baxeen waxaan rajeynayaa gacanta xaq daran ee dishay sida ay imika dawladdu noo ballan qaaday degdeg in sharciga in la horkeeni doono oo la soo qaban doono insha Allah arinkaas oo dhamaan doono waxaan raali gelinayaa iyagana salaadiintii magacooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda la soo hadal qaaday oo runtii iyagana khalad weyn ay ahayd intaas baan ku soo gabagabeynayaa